cadowna kurdaa lagu talagal maxaa shacabka marka masaakiinta ugu dhibaateynaysaa maxaa ugu xabadeynaysaa maxabaday ka mudan yihiin kuwan yaa waay ninka rabo hadda hooyadiisa abiisi iyo walaalkiisa inuu xabado ku riday gurigiisa yaa waay taliyaha nabad sugidda Jubbaland Cabdirasiid Janaan ee dhigiisa maanta isku day inuu hagaajiyo ciidamada qaybtooda nabad sugidda ee dheeraadka ay shil keenay gudaha magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo halkaas ay kula kulmay asagoo ciidamada uu kala dardaarmay inay ilaaliyaan xaaladda guud ee amniga magaalada Baladxaawo ayna iska saaraan mas'uuliyad dheeraad ah si loo ilaaliyo amniga magaalada hase ahaatee waa kuwan qaar ka mid ah ciidamadii shil la keenay gudaha magaalada Baladxaawo si loo ilaaliyo amniga guud ee magaalada ya ilaahu marqaatiko ninkii ku rido oo la ii keeno oo nabadgelyada qaranka waa la yiraahdo oo ay keenaan ragii saraakiisha maxaa ku xukumaysaan ii sheego wuxuu sharciga u galay ku xukumaysaan waa mahadsantii adoomo ilaahay uu leeyahay waa nahay ilaahayna waxa kugu adoonsaday waxa kamid ah in la caabudo asaga laga boqo wuxuu ku faray la fartoonaado wuxuu ka reebayna laga haro kaasa ilaahay nagu adoonsaday wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba ilaahay leeyahay jinni insi wax kale uma abuuran illa inay caabudaan ma ogiye wax kale uma abuuranin ciidankan waa ciidanka nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan degmada Baladxaawo iyo Doolow intaas aad isku dhex fadhiyaan Sooma ciidan qurux badan iyo rag qurux badan oo qaali ah ba meeshan fadhiyo xaqiiqiyan oo u baahan laakiin wax badan oo askari u baahnaan jiray oo baahiya ay ka muuqato laakiin haddana markii la fiiriyo sida ay u dayacnaayeen xalkooda siduu yahay aad u qurux badan dadnimadiina iyo kartidiina iyo dadka aad tihiin iyo qofka waxaad ku salaysantiin iyo waxaad goysaana waa aqaanayo saakiin in la iga warramo oo u baahni raggeesiyaal ah qarnimadooda jecel Soomaalinimada jecel dalkooda iyo deegaankooda inay u shaqeeyaan rabo shacabkooda inay u adeegaan rabo saasatiin soo saas ma shacabkan wixii dhibaateynayo oo caqabad ku ah magac kasta ha yeeshee oo dawladnimada Soomaaliyeed diidan inay diidaan oo iska celiyaan u baahan rabo soo saas ma aad ba u mahadsantihiin إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسوح كله هي عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ومعنى يدو تهي قفك إلهي سبحانه وتعالى وحولها اللي مركو أقدم بس نفتيس نفت هذا حجاجي وناجي حمانتك إلالي قفك باديوبو هذه نفت هذا كاتو كم ورد بيو لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أدوك هذا ننتان وقفكو أسوها نسيه وفي عنها قفك لما نفتيس إلهي سبحانه وتعالى قووا أنفسكم وأهليكم آيات كلا نفتي إنه وديقو كدب إهلكين سومالي محيطر هذا تيس الدريالة تكلمها محالي هذا بعد دريالة وحاربنا تكو ننكستو نفتيس إنه دريالة حاجاجيو حمانو وكرنا سكرنغو wanaag uu ku soo celiyo asagoo ka bilaabayo ilaahay awaamirtiisa iyo wuxuu ilaahay faray inuu qaato wuxuu ilaahay u diidan oo ka haro inta markaa sameeysid baa waxa u gudbi kartaa marka inaad ama ummad Soomaaliyeed iyo qarannimo Soomaaliyeed iyo shacab aad la noosho inta wanaagooda inaad ka shaqeysid laakiin ali hadda isdulaysid hadii adaaba duulaysana ma hagaajin kartaa waxbana Sooma حرنا مركب قف كست نفتيس إنه هجاجي إنه وناجي إنه وناج نفتيس كشقايو مركز كدب ونفط وناج ذا كشقين كره أرجع سبحان كسوته وحركة يساوي أنت عاد عيد كل حجري ولو ده يعني أنت بدنين عيدنا هايو نولش يدي بقى عسكري عيد كسر حجري لكن أسكرتي عيدك أنا عسكري نماذج كسر بلاون كسر برباري وهي هاي أنا عسكري أنا بلود لهين رت إذا أنا بلود لهين نك السواق مركوب بريو لقيا وجس أما لو جس القرآن إنه آخريو نوعس ونلبح وحان كسر درمادي وهذا ندب أول شيء أكتهين ورجينا نركلا طب أنت هالكام جبت قارك كم ده ولا ورجع شيء عيدون كسر بيرين الجيران يكوا كلا أنت بقى هذا برنامج كلا إصلاح صعدة
noocyo badan leh ani ciidamada markii ugu dambeysay dagaalkii shabaab markii aan ciidamadii lagu soo tababaray Ethiopia ama Kenya oo dawladda Andalskan ay noo soo tababareen markii laga saaray ciidamada kale gobolka lagu tababari jiray waxaan raadin jiray marqaati ka tihiin team yar baa u tababari jiray waxaan raadin jiray inta badan qof aan balowd lahayn horta lambar 1 laakiin waxaan aragnay baadiye asoo ku dhashay oo meel waligiis kale magaalaba aan arag inuu tuulo u baadiye ka soo aadan magaalo ka soo aadan ma ahane qoriga oo ka ugu horeeyo aa ka hayo la siiyay intuu gubici bixiyay baarudiisa shidanay baruud meeshu ka gaaray macnaha kaas markii ciidanimadiisa waa ka soo gudbay macnaha sagaar buu ka soo gudbay qaad buu ka soo gudbay tubaak buu ka soo gudbay hebelo ka soo gudbay xashiish buu ka soo gudbay waxaas oo dhan balowda cagaar soo dhigay gubici aa ka hayo la siiyey wuxuu ka dayay xaalad inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ya مسها كنت سنة مارت تاس هذا كور بالإيش الله ونحرس حسن فنح هذا وجع لابا سو حربوت كي سوسي الناس اللي قالوا هذا حمر جو أحمد قرصول لي هذا إيوه أبندولها الأوركان حسن بسوح حسن أبوك بالربوت سوح سوسي أي كان معلمين واها حسين الربوت كمسؤوليات بيقول مسؤول قرنين أحمد قرصول يا حسن وحيا هين معلمين تيسي وانا عباش يا حنوت لحد اللي وقت هيك روحس حالات كلام كان لنا راس جمعة تاوي فرتت باروديسي إنا لله تعالى ونح أدبا ونح رجو حالي هذا هيد فرب بدن عاد يرو برورها قرمية سماها سواء مغشين سما لكم ما ماذا رج بدن أو بقلاله في عن أو قروح بدن حلين باهورته حلي هل كاس نقول كذا الاسكي قبلين حمان ترجو وذا جاري حمانته وذجارس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إلى إليه حتى عبستان في النوع أما حمان قفك سمي سيجارة ولا أنا أقول عيني لما أنت اللي نكون العيس إلهنا عقابك سوى أذكي وتحروا رجينا نمسكودة أو لنيرد الصومالية أو سيد قروح بدن أوفر إن سق قروح بدن شعبك الصومالي لو أديك يقرن ماذا وحيالها قفك وكب الله إنسان وركي هذا هو أب الله نفتيس وكب الله ونك مركو أسيء سوناجيو بدأ حوناجي كتر هذا كور بحمر براب رشدة فيديو حاجة فيديو اللي ورجيناي أو عيدك أسلوبته وحرينا أرولنا يندتك دربجيفية ده يو مع نورش كدع نبى وحلو ودي مقعاء وحكي جوا قرنسا سما مقعايا ويرسوا سوا حسوسها مقعي سوا قوي نفتي سوا حكي هرسي هيرو نفتي سوا قوي برضو حروا مقعايا إنا سدعل مقعا قفك مقعايا بعدو حالي دي سيقرسي محوقة مكرا نفتي سوا قبي يوحوقة مكرا دولدنو يقرنمو يشعب يومننا شعب كي وقتركو يهي بأسيقى قريسو حروا نويه لليرده waxa cunaysan way xun yihiin waxaad ka yeelaysan waa baqti waxaad ka yeelaysan waa uf waxaad ka yeelaysan waa hebel ma indhahay laakiin ilaahay wuxuu idin ka reebay ka haro ilaahay wuxuu idin ka reebay ka haro waliba xaaladda balwadeed way si kala khatar badanta qofku hadda koorba magaalada Dorow xashiish markii igu horeysay aan maqlo ما مقال أنا مقال ما هين مركان قبته ورسيه أمرا كبيحي لكن قتلتي سي نوع هذا واقعا وما قول وحاري حشيش كاس بالسواق قبته قمري حاري أنت عيدا باقتي واحد سيلا واحد اللي لها ما يشوف الدرجين كمرتني أو دقمده باري لو يمكن هالوجود جبيو أو قبر ده هالوجود داديو لو ينبهت حشيش كان هالوجود مقالي دو أنا وصلت قف الترار horta qatartiisa walkaas fahmay walkaas koor ma fahansanin aniga waxaan diidanaa xan askar baa qaadatayo baalka lacag buu joogaa fara badan sidii la sheegay lacag askar baa qaadatayo waa xadeen oo waan ka teeman diidanaa waxaan mar soo qabtay hal soo qaada qamridii asaga bulshada horteeda asna hal ugu gubo bulshada magaalada qof haraantida
qabridu ma khatartaha asaga ka khatar badan waxaan rabaa marka wixii noocaas ahaa intaad soo qaadato oo lacag ka soo bixiso oo shilinkaada ku soo gubto aad hooyada iyo aabaha iyo carruurtaada iyo naftaada ku daryeeli lahayd adna inaad isku dhibaatayso inta kula joogtana isirqaamaan isku dhibaatayso soo dhibaato ma dhibaato waa waxaan rabaa marka raggiina inuu nasbeynayo guud ahaan ciidanka Soomaaliyeed oo ma la hadlaya gaar ahaan kuwa gobolada joogan la hadlaya gaar ahaan waxa la hadlaya tiimka Balaxa oo isla joogno qofkii maskaxdiisa iyo aqligiisa waxaas ku shaqeeyo ilaahayna ha uga toobad keeno toobadu waa furan tahay xumaantana naftiisana ha ka daayo nafta dadkiisa la joogo oo ciidanka askariga saaxiibkiisa ka mid yahay oo dhibsanayna ha ka daayo waxaan u baa qofkaas inuu shacab Soomaaliyeed wax taraynin wax dhimaal buu sameeynaya inuu wax tar iska daa wax dhimaal buu ku sameeynaya askariga uu la joogana wax taraal kuma sameeynaya wax dhimaal buu ku sameeynaya naftiisana wax buu dhibaya adigana wixii lagu tababaray oo qoriga lagu dhiibay oo lagu qarameeyay waxaas ma ahayn aad waxay ahayd naftaada inaad daryeesho nafta shacabka Soomaaliyeed inaad daryeesho nafta askariga saaxiibkaana inaad daryeesho nafta qaranimada Soomaaliyeedna aa u shaqeyso daryeesho laakiin adiga hadda naftaada disho waxa waxaad daryeeli kartaa ma jiraan taas marka waxaan rabaa ciidankan waliba noo sugida ciidamada kale waxba gaar ah ka yihiin waxay gaar uga yihiin hadda xaalad iyo axwaal jirta idriis idin xirtay oo idin hubaysay oo qori idin dhibtay oo iska ilaalinaysan oo shar carrada ka jirtay ciidan noo sugida noocaan caalamka kuma jiro ciidan operation fuliyo oo noo sugida ka tirsan caalamka leeyahay operation qof dharcada uu soo xaqiijiyay fuliyo oo gaar ah laakiin ciidamo hubaysan oo noo sugida oo tiknika wato dhishikiyaal oo niise ugu buufsan tahay oo hebelo oo adduunka ma jiro laakiin annaka xaalad waxaa jirta culimadu markay wax xugminaysa al-cilmu yaduru maca al-cilla waxay yidhaahdaan xaalad aan dhex taagannahay oo aan ku jirno baan ka dhex shaqaynaynaa waxaa laga ummadda Soomaaliyeed maanta 80% masaajidada fiiri masaajidadaas manaaradaha la hor meel kasta laga jiro kuma tukato qaas ahaan salaadaha salaada subax iyo salaada maghrib iyo salaada cisha labada salaadood kan ayagoo dhinacyada fiirinayo baa dadka qaar ka yaabaan inay ku tukadaan shacab way ugu dadka sayda qof mas'uul ama ciidan aan warkiisa uma jiro axwaashaasan ku dhex noolnahay taasaan marka waxay sababtay in aad qoriyo la qaato la iswaardiyeeyo oo tiknika la buufsado taasa sababtay ciidan shacabka loogu talagalay inay ku dhex jiraan qarannimada ilaaliyaan dawladnimada xogtooda ay ku shaqeyso dawladda Soomaaliyeed xogtooda iyo dawladda kastoo dalkaas ka jira ay xogtooda ku shaqeyso waa horta ciidankan ciidanka dalka difaaci lahaa waa raggan hadda xeradooda aan dhex joogno maanta aan ku dhex feeleen ciidanka kale oo shacabka u shaqeyn lahaa ayagoo dariis qabo oo bistoolado wato oo katiinada gacmaha ugu xiran yihiin waa ciidanka Soomaaliyeed ciidanka ugu horeeyo la aasaasay waxa waaye booliska Soomaaliyeed ciidanka xabsiyada dadka ku hayn lahaa ayagoo qoriyo haysto iyo ayagoo katiinada watana waa ciidanka asluubta Soomaaliyeed laakiin nimankan inay hubaysnaadaan ma ahan jirin duruufta lagu isku hubay khibrad iyo aqoon iyo tababar dheeraad ahna ciidamada Soomaaliyeed waa dheerihiin oo ciidanka ciidamadaas kale saddex ciidan oo kale uu dheeri siyaasad bay ciidamadan ka shaqeeyaan ciidamada kale siyaasad kama shaqeeyaan waxaa marka u baahannahay sida uu mustawihiina yahay qorigana ay duruufta in kugu dhiibtay in shacabkan iyo dadkan loogu shaqeeyo ee qarannimada intaas kadib aniga waxaa idin milaado xaalad ay taagan tahay 8 bilood magaaladan ka taagneed dhufaysay la isku hor qortay maalin dhowtaa magaalada waxaan la yaabanaa labadii nin oo gudoomiyaasha isku haysatay iyo ninka odayga General Jamaal ah difaacida isku hor qorteen intay la ekaayeen waqti 8 bilood soo kaadina ku dhacdo inta markaa fiiriso shabaab inta markaa fiiriso ku kala askari oo difays ka hor qortay magac kastaba u yeel xaalad adag baa ku sugnaadeen xaaladii hadda ay ahayd meel bay noo maraysaa waan idinkaga mahadcelinayaa guulahii shacabkan Soomaaliyeedna u soo hoyseen qarannimada Soomaaliyeedna u soo hoyseen waxaan rabaa inaan idin sheego kuwa naga maqan oo hadda duur ku jiro waa ciidamadeena waa mid ciidanka nagaan ahaa ciidamadan ka tirsanaa iyo mid ciidan walaalkiis ahaa
يمد شعبه ولا أبابولي أو قرنا سوق هذا العجن ولا وسينا يليري وما عن جيرين وفجأة ووقت أفريتون سنة جبلان يكسرون ولد كشقي صوت أفريتون سنة جبلان وحيد دولت كنت هاي عسكري عن حقوق لهين حق عن لهين درجة عن لهين وكشقيه والعو كقاتيه كلا سرين مشار جوكتا عن لهين حرد أدقى ما المدن اللي يقارب من كل قصار ظروفته أيضا هيد كو أي كهاي وقبه أولو دقالة للسين إني با أنت وحلوس وحاول وياها العقل ولو بغلة يقول هذا سوق هذا كي أنقر وذنه وكوبا هن هاي كاله ولو قرية سوق هذا هذا كاله تهاي مركور قرية سوق هذا صوص مين مركور قرية سوق هذا وولا لها إنه وصاحب هذا إنه وويلش الذي لكن رأيي أن أنفعي إن قرننا الصومالي الشعب كان صومالي وديان كدقن أنت ويكون شقينيا ما أنا لا أقبلك قفك لكن كسو قد بفكر ياس أنت أنا لمدي أنت أنا الحقوقي هاي أنت أنا الأركتي هاي أنت أنا الضدي إنا إسدلو أن دل مرمو إنا ندلان مرمو لكن حكوا هذا اللي نحوي شرعي وكسو نقض الدولة لماذا الصوماليات يقرن لماذا يوحي أنت إلى لنا يعني كالي إلى لي شعب كان صوماليات وديان كان دقن لبناها وأن لنا مساجدة شنتي سلادود إلهي وكوا جبيه لو قفك إنه جماعة كتب كذا إلهي الله أمري واركعوا مع الراكعين إلهي ويري وواجب كل وقت يجي إنه مساجد كانت جماعة على آذو هذو الظروف أوجها أو حنون أو سلك يكرن يسجلين وحا كو أدي ذي أو نبك كوهي نبك له أو درنا بل كواس نبك السمايين نبك بدن بيسمايين سأقولنا هاي نمانكي عردان جوجي تاسو حي صوبتي إن رجيناني أيك لكلا جعلاض رجيناني أيك لكلا جعلاض ما قبيل إنه كلا جعلاض قرن نمض إنه كلا جعلاض قبيل إنه كلا جعلان قرن نمض إنه كلا جعلاض وكون لا فهمه إن قرن نمض الصومالية واردينيان إلى لنا يان شعب كود أطريان كون الشعب كود عنقبتيين أي دباتنا كويهين حرنا شعب كان مقالده كل نول قفك هبيك وسحلا صبح لو ساعة وصوش شغتها أنت بدل صبح لو ساعة إلى 6 ساعة وهبين نبو حرية يكون شقيستان ضد كان إلى هلان دكانهم يكفريهن يقولوا ببتويك وأغش شقيستان يان بغارضوا يكفريهن مقالة كلا سعوتين نقطة عيدك واردين ورجع نقطة لكن قفك هدو نبصدوا ويراهدوا هدا اللي بيتونك جارت أديك رفت هذه مالك هذا ولا بالغيسان يا صوت واتما halkaas la gaarsiiyay magaaladan iyo deegaanada dadka la rabo markii inay ku soo celiyaan dadkan xorriyadoodii waa adinka waxaan rabaa markii dadkaas xorriyadoodii inaad qaadaan ilaahay inuu idinku ogaado wax dadkaas ay dhibsanayaan ciidankan in la imaan waxay dhibsanayaan maxaa kamid ah xabadan dhawda aad ku heesaan dhaw qaw bay bal waxaas xabad warshad baa leedahay adinka in soo saartay كذا ورشد هذا لهين صوب كذا هذا رتدي والو كان مداخل لو كان ايوه لو كان والو كان واحد ستاي عدو مياد كرديسا الشعب كذا والكل كرد لو تلقل عدو انا كرد لو تلقل ما شعب كان marka masaakiinta ugu dhibaateynaysa waxa ugu xabadeynaysa maxabadii ka mudan kuwan yaa way ninka rawaad hooyisi abis iyo walaalkiis inuu xabadu ku riday gurigiis yaa way gurigiis ninku tuu dhaxtay caruurtiisa islaantiisa xabadeynaya yaa way kuwa xabadeynaysa marka soo kuwa ma dhal لبنا أذكره إصدافة ده مد على مد كحد حبدينيس ومركز حبد ده كرديس والله رش والله لا أسيب هذا أما وجب ديسي أما وويل كيسي أما وهويديس أما وولاشيسي أما وأبيس أما وأدركيس ما هو حبدينا مركز عليه الحرم كقوله أنت سكوية مبلغ قاعد إنسان شعب كان عيد كان وسجود بقرنكم أنت ونقولي أوته إن الشعب كان حبد كردين وأنا عدو إنه كرد مبلغ قاعد كتان يا إلهه مرقاتكو نينكي كوريدو oo la ii keeno oo nabsuuda qaranka waa la yiraahdo oo ay keenaan rag saraakiisha maxaa ku xukumaysan in sheego wuxuu sharciga ogol yahay ku xukumaysan waa mahadsantii ilaahu marqaatiko ilaahay oo marqaatiko intaas waa ku mahadsantiin intaas kadib waxaan galeynaa qoraxan fadhinaay xilli marka farsamo iyo shaqo ciidankan hadda waa laba degmo ragna shaqay ku maqan yihiin wali سيربوت كسيان سراكيشة ركب أولي شغال كم مغان أما مجالة عن أوجو مغان أما مجالة كلا أوجو مغان لكن لو مجالة كلا ترسنتي وعليها بني كلا مجالة كلا كترسن
oo luuq oo kale inuu fadhiyo suurtagal laakiin waa yar yahay ama hal ama laba ama saddex garbaari qof ka tirsan uu jiro waa hal ama laba ama hal ama saddex laakiin ciidankan hadda waxa meesha fadhiyo waa laba degmo waa حتى هلا ما لو بس ده حتى إنس جريمة صورة قلة هل واو لكن لو يستحين يسجل ما صورة قلة دقيقة قرقود